بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله walaalaha meel walba joogtaan waa idiin salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto qur-aanka warattil alqur'aana tartiila. allah subxaana watacaala aayadan markuu nala hadlay wuxuu yihi warattil alqur'aana tartiila, ma aqrin waqra'u alqur'aana qiraa'atan ma dhihin. rattil macnaheeda waxaa waa sidii loo soo dejiyo aqri. qur-aanka luqa alcarabiya uu kusoo degay. xuruufta rattil waxaa waaye axkaamteeda inaa ilaalisid, taas waa culimmada u sameeyeen kutub tajwiid la sameeyey. haddaa aqris muqadimada koobaad waxaa ku qoray inuu qofkaas cilmigaas inuu barto fardi cayn calaa kulli shakhs. fardi cayn macnaheedu waxaa waye sidii salaada waajib kugu tahay kana waajibay kugu tahay inaad baratid. example haddaan ku siiyo hadda oo loo baahan yahay markii man yacmal nuun saakina watanwiin man yacmal haddaa tiraa man yacmal haddaa tiraahid qalad waaye. qur-aanka ilaaha soo dejiyey siduu usoo dejiyina u aqrisidaa loo baahan yahay. cod qurxan inaa samaysid haddaa awood dadaa, laakiin codka ilaahaa bixiyo. codka qurxan waa waajib may kugu cod qurxana ku aqrisi waajib kugu ma laana codka adiga ma leedid, waxaa waajib kugu laakiin axkaamtii sida loogu talagalay inaa aqrisid. tajwiidka xuruuftii makhaarijta inaa ka soo saartid. hadda madkoo kale hadda example haddaan ku siiyo qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun. meeshan laadan waxaa ku jirta mad oo laba xaraka ku jirta soo maha. laa acbud haddaa tiraa fiire la acbud haddaa tiraa maxaa dhacay caks kelmadana waa isbedelaysa. kelmaha macnaheeda waxaa waye laa acbud ma caabudaaye, laakiin hadduu madka ka taga maxaa noqonayso la acbud waa caabuda. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay qofka qur-aanka axkaamta inuu ku barto, tajwiidka inuu ku barto, inuu makhaarij alxuruuf inuu yaqaano. waa the basic. qur-aanka markaa baranays ku bara hayse dhihin marka hore qur-aankan baranaa kadibna tajwiidkan baranaa, maya qalad waa. markaa baranaysid ku baro. qur-aanka haddaa baratid saa ku baratid saa ku badashid way adag tahay. haddaa qalad ku baratid ama axkaam la-aan ku baratid wadadan waa isku dheeraysay. kelmooyin qaarkoodna waxaa laga yaabaa inaad bedeli weysaa laga yaabaa. sidaa darteed markaa baranaysid ku baro. macalimiinta khayr allaha siiyo qur-aanka si fiican u baraan, laakiin sometimes wuxuu rabaa ilmaha qofka inuu qur-aanka ka soo baxo inuu aqrin karo qofku waa in la kala saaro. ma joornaal uu aqrinayo, joornaal carabi ma aqrinaysa qofka, mise wuxuu aqrinayo qur-aan uu aqrinayo. in la kala saaro loo baahan yahay. qur-aanka axkaam uu leeyahay, qun uu leeyahay, shad uu leeyahay, fatx. hadda marka maliki iyo maaliki iyo iyaaka nacbud fatxadaas kaliya iyaaki ma dhimis iyaaka leedahay. shadada meesha inay ku jirto waa loo baahan yahay. madka examplekaas uu leeyahay. wax walbo saasoo kale u baahan yahay. qur-aanka markaad ilaahi subxaana watacala wuxuu warattil alqur'aana tartiila. qur-aanka marka tartiil in loo aqriyo, si degan loo aqriyo, carabkaaga inaad sugtidaa loo baahan yahay. intaad dadaali kartid dadaal. haddaad qur-aanka qalad u aqrin waxaan ku dhihi lahaa hal jus oo hal sano baro ayaa kaaga fiican inaad qur-aanka dhan hal sano ku baratid oo axkaamta ay kaa halowdo. cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma waxaa laga wariyay suurat albaqara inuu ku baranayo sanooyin uu ku baranayo laga wariyaa. sababta wuxuu yihi waa barana kadib waa ku camal falaa. wuxuu u baranaya laakiin waxay ahayd sida ugu fiican u baran jiray. tan dambe ugu muhiimsan waxaa qur-aanka markaa baranaysid ha ku baranin kitaab kaliga ha furin, axkaamta kaaga halaabayso. waxaa samaysaa sheekh hoos fariiso ibardhe. qur-aanka saasuu ku soo socday. allah subxaana watacaala soo dejiyey samaa dunya loo soo dejiyey. jibriila soo qaaday, nebi maxamed u keenay. nebi maxamed asxaabtiisuu baray, asxaabtiis taabiciinta bartay, taabiciin saas waa marka. laakiin haddaa kitaab kala furatid aqrina waa barana aad tiraahid qur-aankana ma baranaysid, axkaamtana way kaa halaabaysaa. sidaa darteed anagoo ku camal falayno warattil alqur'aana tartiila. qur-aanka macalinka baro kow, markaa baranaysidna axkaamteeda sax. ha gudbin beej, ha gudbin ama aayad ha ka gudbin adigoonan aqoonin.
kasoo bax waxaa ka fiican inaa axkaamta iyo makhaarijta aad saxaysid ayaa ka fiican. qur-aanka kow macalinka baro, labo axkaamta sax, saasaa loo baahan yahay. intaas aan ku dadaalno, qur-aanka aan barano. qur-aanka fadaa'iluu leeyahay, waa laga hadlay. qur-aanka waxaa fadli kugu filan rasuul sal alla alay wasalam inuu yihi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama. waxaa idinku khayr badan fiiri kelmada waa caam, wa khayr waa mant yaa waaye waa man tacallama alqur'aan, qofka qur'aanka barto. kow ina adiga bartid, labo wacallama dadka inaa bartid. waxaa baratidna hala bakhiilin, sidii laguu soo baray dad u baro marka hore, adiga marka hore baro, si fiican u baro. markaa baratid oo si fiican u baratid kadib adiga barbaritaankaa baraysid, kow ajraa kugu jiro, labo waxaa qur-aankaaga naftarkiisa kuu sugmaaya markaas lan maalin walba aqrinaysa, saddex sadaqa jaariyu kuu noqona. sidaa darteed qof walba waxaan dhihi lahaa qur-aanka barta, sida u saxsan barta, kadibna aqriso, kadibna dadka kala bar. jazaakum allahu khayran. ilaah subxaana wa tacaala hanaga dhigo dadku qur-aanka u shafeecaya maalinta qiyaamo. sida rasuulku noo sheegay, qur-aanka wuxuu imaana maalinta qiyaamo shafiic, waa saa kuu doodaya. ilaahay nagama dhigo dadkuu ka doodaya ama dadkuu qabsanaya dhahayo ilaahayow ninkan qur-aankii ma aqri jirin ama qofkan qur-aanka ma aqri jirin. ilaahay nagama dhigo taas. dadka qur-aanka barto, dadka kala sii baro, kuna camal falo. allah naga dhigo. jazaakum allahu khayr. baaraka allah fiikum. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.